waa mid ka mid ah jilaayadii ugu shactarada badnaa ee soo maray dalka India. Magaciisu waa Paramnandam. Soomaaliduna waxay ula magac baxday Leefleefo. Wuxuu ku dhashay dalka India, gaar ahaan Andhra Pradesh, sanadu markay ahayd 1956. Wuxuu ka qalin jabiyay jaamacad leeyahay RG Nagruja University. wuxuuna ka qalin jabiyay qaybta Suudaanta. wuxuu ahaa macallin Teluguya kaasoo bara dadka Suudaanta. Leefleefo filim jilista wuxuu ku soo biiray sanadu markay ahayd 1987. filimkiisii ugu horeeyayna magaciisu wuxuu ahaa Belendi. Leefleefo wuxuu jilay in ka badan 1000 filim, wuxuuna sidaas ku galay buugga dhacdooyinka adduunka ee World Genius Record. waxa uu haystaa 20 jaa'isadood wax ka badan. haddaan u leexano dhanka noloshiisa gaarkaana, Leefleefo wuxuu dhalay 2 wiil, waxaana u dhashay gabadh la ilaalin Kashmir.